Asalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada channelka. Waxaan rabaa maanta inaan idinkaga sheekeeyo positive parenting. Parenting waa markaa tahay waalid maahan oo markaa hooyo tahay ama aabo tahay, laakiin markaa caruur haysatid yaryar ama caruur hadda xoogaa korsan, waxaa laga rabaa qaab inaa ula dhaqantid, relationshipkiina uu ku fiicnaado, communicationkiina ku fiicnaado, iyagana ay respect kuu siiyaan, adigana aad respect ku siinaysid, because iyaga inkastay caruur yihiin still waa waxaa waaye mahano qof waaye bini aadan waaye. So hadda muuqaalada soo socda insha Allah waxaan rabaa inaan hal idinkugu sheego waxyaabaha aan aniga sameeyo, waxyaabaha aan aniga aan muhiim u arko. Of course wax badan intaan ka badan way jirtaa, laakiin hadda waa soo koobaynaa, otherwise videoga aad u dheeraana. Marka waa mahadsantihiin. Waxaan rajeynaa haddii aad idinkana rabtiin comment ina ii soo qortiin waxyaabo kale oo mataqaanaa rabtiin inaan idinkala soo hadlo insha Allah. waa mahadsan 10 xabo kala duwan aan idin sheegi doona insha Allah. midka 10aadna aad u muhiim u yahay. So insha Allah waxaan rajeynaa inaan muuqaalada dhan daawatiin. So midka koowaad, runta u sheeg caruurtaada mar walba, wax kasta hadday tahayba. waxyaabaha aa u sheegi kartid da'dooday ku xiran tahay iyo qaabka ugu sheegaysid, laakiin marnaba ha u sheegin been, mar walba runta u sheeg insha Allah. midda labaad, adiga ha kaa arkaano example-ka fiican oo diinta aad rabtid inaad ka tustid. So diinta ku bar qaab oo qosolna qaab farxadna ku jirto. So salaada markaad dukanaysid ha ku arkaan hortooda ku duko, quraan markaad akhrisanaysid ha ku arkaan hortooda ku akhriso, markaad ducaysanaysid kor u akhri ducada, aamiin ha ku dhahaano, marka adigay kaa daba daysanayaan insha Allah, taasna way fahmi doonaan. midda saddexaad waa inaa caruurtaada la sheekaysatid. waxa u malaynin because uu yahay cunug yar ama uu yahay wiil ama gabar aan weli korin ma la sheekaysan kartid. No, caruurtaada la sheekayso. midda xigta waa inaa caruurta aan farxad u muujino, oon farxad tusno. gurigooda waaye, gurigay ku korayaan, meeshan waaye aas-aaskooda, so inuu meel fiican u noqoto. midda xigta waa positive reinforcement. waa qurux badan tahay, maanta wax fiicana samaysay, waa caawisay, ilaahay khayra ku siiyo. So inaa caruurta more positive aan u sheegno inay fiican yihiin, inay dad wanaagsan yihiin, inay dad wanaagsan noqonayaan, iyo inaanan la caynin, la bahdilin, wax xun lagu dhihin, qalbiga laga jebinin. So midda xigta waxaa waaye inaad bartid caruurtaada markii ay yaryar yihiinba, maaragtay inay waxyaabaha wanaagsan, habitska wanaagsan inaad tustid. Not only siday jirkooda u nadiifin lahaayeen, gurigooda u nadiifsan lahaayeen, also inay la dhaqmaan dadka walaalahood, saaxiibadood iyo xayawaanaadka xitaa inay u naxariistaan. naxariista in la baro cunuga markuu ka arko inaad adiga qof naxariis badan tahay, asigana uu ka arko inay naxariista wax muhiim tahay. wax kastoo ilaahay abuuray naxariisu hadhowtu ula dhaqmaa. midda xigta waa inaan caruurta jaceyl aan u muujino iyo inaan habsiino, inaan ka farxino. haddana iyadoo sidaas ay tahay inaan runta u sheegno, waxyaabaha xun inaan ka celino, waxyaabaha oona u wanaagsanayn indhahoodii, maskaxdoodii, afkooda inaan ka ilaalino. inaan waxyaabaha ay rabaan ay jecel yihiin haddii ilaa xad aad u ogolaatid, inta kale aad leedahay no kuuma ogoli, inaad ku ekaatid meeshaada, adigana aadan u ogolaanin. So iyaka waa inaad dhowrtid, inaad dhowrtid. isla markaana waxay soo dhex galaysaa stick to the rules. hadda adiga ruleka soo fakartay sidaan ma dhacayso, sidaas inay dhacdo maahan. So wax kastoo cunugaaga isku dayo inuu kaaga keensado, waa inaa adiga wixii aad soo dejisay, qaabkii aad u soo dejisay, waa inaa saas loo dhaqmaa. haddii kale hadhowti maahano ma fahmayaan balamaha la isla dhigto inay tahay in laga soo baxo. So marka insha Allah taasaan rajeyna inaa fahanteen. midda kale, mar walba caruurtaada aamin, wax kastay kuu sheegaan. caruurta been ma sheegaan. haddii ku dhahaan maanta saan igu dhacday, ama sidaan laygu dhahay, ama ka aragtid inay si kale yihiin, always weydii inay runta kuu sheegaana bar. mar kasto haddii runta kuu sheegaana aamin. midda ugu dambeyda oon idin dhahay waa very muhiim, waa tan caruurtaada la noqo saaxiib. haddaadan adiga caruurtaada la saaxiibin, dad kale saaxiib la noqonayaan. dadka kale saaxiib la noqonayaanna maaha dad adiga aad rabi doontid, waxay rabaan ba ahaadaane. especially caruurtaada markay banaanka wax ka bartaan, saaxiibo tiro badan yeelanayaan. So horta waa inaad bartid saaxiib waa maxay. marka adiga caruurtaada wax kasta ay rabaan inay la sameeyaan saaxiib, da'daas markay soo gaaraan inay banaanka rabaan inay aadaan, la sameey. jid kasta la mar, meel kasta la fariiso, wax kasta u sameey, si kasta u yeel. ani waxaan ku dhihi lahaa
marka adiga aa la saaxiibtid saaxiibtinimo meel kale ma ka raadinayaan marka adiga siisid waxay u baahan yihiin meel kale wax ma ka raadinayaan insha Allah aada u mahadsantihiin waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidaysateen waxaan idin weydiinayaa inaad iisoo qortiin commentka number 1 ilaa number 10 kee ku anfacay ama kee isleedahay inaa wax ka qabto waaye 10 xabon soo dulmaray insha Allah waxaan rajaynaa inaan commentkiina soo akhriyo su'aalo kale hadaa qabtiinna waa idin soo jawaabi doonaa insha Allah qodobo badan soo socdo soo nala socda ku soo biira channelka subscribe ka hanaga iloobin waa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh